بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المؤلف الإمام أبو بكر الإسماعيلي عليه رحمة الله: وذلك من غير اعتقاد التجسيم فيه عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف. ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن كثرت طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة. جملة وذلك من غير اعتقاد التجسيم فيه waxay ku xidhan tahay fiqradii ka horeysay oo ah Allah tabaaraka wa tacaala aragtidiisa aakhiro. marka halkaas ku xidhan tahay ahlus-sunnah ahlul hadiith yarawna wa ya'taqiduna jawaaz ar-ru'ya wa wujubaha. halkaas ku xidhan tahay wadaalika kaasina oo aragtida ilaahay la arkayo oo ay aakhiro ku arkayaani min ghayri i'tiqaadi tajsiimi, jismi i'tiqaadintii la'aanteed bay ahaatay fillaahi alla dhexdiisa lagu i'tiqaadiyo, wala taxdiidi wala i'tiqaadi taxdiid, xadidid iyadoon la i'tiqaadinin lahu alle. laakin yarawnahu allay arkayaan mu'miniintu jalla wacaza biacyunihim indhahooday ku arkayaan calaa maa yashaa'u siduu doonay u arkayaan huwa isagu bilaa kayfin qaab la'aanteed, yacni bilaa takyiifin aw bilaa kayfin naclamuhu. ayb, jumladaasi ama fiqradaasi sheekhu wuxuu ku taqyiidinayaa masaladii ru'yatullaahi tabaaraka wa tacaala fi alaakhira. marka laba qeyd buu daba dhigay oo ah markaan leenahay ilaahay aakhiro way arkayaan mu'miniintu, macnaheedu maaha inaan ictiqaadinayno in uu alle jismi yahay ama in uu xadidan yahay oo taxdiid la ictiqaadinayo maaha. yacni markaad ru'yada sugayso laabudda min nafyi tajsiim wa nafyi taxdiid, saasuu wataa macnaha. yacni jismina waa inaadan ilaahay ku sheegin, xadididna aadna ku sheegin. ayb, tajsiimku waa inaad shayga ictiqaadiso ama aad ka rumayso inuu jismi yahay. jismigana waa kelimo ay mutakalimiintu keeneen, isticmaalkeeda ahlulkalaamka iyo falaasifada iskale, amaa qur'aanka kuma imaanin. يعني لم يرد استعمالها لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف. waxaa isticmaalay mutakalimiinta iyo falaasifada isticmaalay oo macnay u yaqaanaan mustalax muayana oo iyagu macno khaas u yaqaanaan. oo jismiga marmar waxay yiraahdaan ma tarakkaba min ajza' la tatajaza'u abadan wa hiya al-jawahir al-mufrada, yani mustalaxaad yani wax way kalaamiye waa. طيب, jismiga waxay yiraahdaan waa wixii qaybo iska saaran, gaballo isu tagay, wixii ka samaysan bay jismi u yaqaanaan. gaballadaas ama qaybaha uu ka kooban yahayna qayb marka la yidhaahdo, qayb kasta ma qaybsami karto. wixii aan qaybsami karaynin oo ajsaada yaryarka jidhku ka samaysan yahayna qayb kasta waxay u yaqaanaan yani oy dhahaan aljawharatu almufrada. iyadana waa mustalaxay iyagu leeyihiin waa macna. marka jismiga mar waxay yidhahdaan aljismu maa yushaaru ilayh, wixii farta lagu fiiqoo la tilmaami karaa jismi la yidhahdaa bay dhahaan. mar waxay yidhahdaan aljismu huwa maa qaama binafsihi, wixii naftiisa gooni ahaantiisa u taagan oon cidna ku tiirsanayn. waxaasoo dhan waa yani tacaariif iyagu ay ku tacriifiyaan. laakiin warka murtidiisu waxa waa kelimatu ljismi iyo kelimatu lxad iyo kelimatu ljiha, kelimaadkaas aan qur'aanka iyo sunnadu isticmaalin laa nafyan walaa ihbaatan in la isticmaalo ma habboona. saas daraaddeed imaamku inuu iska daayay yaa fiicnayd. maxaa yeelay
mutakallimiintu markay isticmaaleen ayagu waxay u isticmaalaan macna ay u wataan inay sifaadka ilaahay ku diidaan مثلا نفي الجسم markay anfinayaan oo leeyihiin ilaahay jid ma aha bimaana waxay rabaan inay u maraan nafyi sifaat inay ilaahay sifaatkiisa ku diidaan ayay u isticmaalayaan saas daraadeed ba yaani sifaatka ilaahay oo la sugo mutakallimiintu waxay u yaqaanaan tajsiim bay u yaqaanaan ahlu sunnaha sifaatka ilaahay sugana waxay ku magacaabaan oo ku dacaayadayaan inay mujassima yihiin saas macna يعني وكلمات كدعاية مثبتة الصفات أما يعني الصفات كرب السجود وضع يضدك السجاء أهل السنة كلمات كأي كعيان يكود عيدان وحكي الشيء وحكم إذا واحد ومجسمة مجسمة ما حكى وضعان بمعنى الصفات كإله هدي السجاء وحكر لنا نساء إله إنه جسمية سيداس دراد الصفات كي سجان وحي سجان جسمي بيسجان الكاسي مركا مرينا يعني مركا كلمة أنفنتهذو waxaa laga fahmayaa in badan ay ka fahmayaan nafyu sifaat ithbaatinteeduna ma soo aroorin mar hadayna la nafyan wala ithbatan lam tarid fi alquran wala fi sunnah wala fi kalam salaf waxa fiican in laga gaabsado taas macna wakadalika tahdidku laba macno yeelan kara Allah tabaaraka wa taala had kooban oo xadaysan oo makhluuqiisu uu dhinacyaha ka jiro oo ihaateeyay macnaha hadii laga wado waa macna faasida hadii laga wado yaani tahdidka iyo jihada laga wado ilaahay dhinacu jiro laga wadana de waan soo baranay taayada oo ilaahay tabaaraka wa taala korbu jira yaani saas macna yaani arshigiisu ka sareeya adoomadiisana waa ka sareeya tabaaraka wa taala taayada hadal kuma jiro marka kalimaadkan sidoodaba يعني وكلمات تحتمل معاني باطلة وقد تحتمل معاني صحيحة قد يراد بها معنى صحيح ومعنى باطل مرة هذه سيداس تهي إن الاستعمال ما فيها والله يقاب صدو سيداس إن أيماد السنة كيقاب سنجرين مركا كلية إن لإلهذو للصغور رؤية الله في الآخرة لكن كيفية إيقابك الله أعلم صمع رؤية الله في الآخرة وثابتة لكن كيف الله تبارك وتعالى أدومدي سواء كسر ريا وين أركيان إن ده هذا ينكو أركيان نعمين أوتهاي راح أوتهاي إن أركان أنت وحي كسي سياسا ما جسمي ما حدبا وحاسي وور فلاسفة ور متكلمين ويكبح مر وذلك أرنكاسنا من غير اعتقاد التجسيم ذلك أرنكا أو أركتذا الله آخر الله أركيا ومؤمنين تو أركيانا من غير اعتقاد التجسيم جسميين يشرك دغد يدون لا اعتقادين ايدون جد يعني ان جسمي ان لو اعتقادين في الله الله ولا التحديد يحدد يدون لو اعتقادين له الله ايدون لا اعتقادين انه حديثين ومعناه waxa weeyaan marka la fiirinayo inuu xad leeyahay go'an shayga xal yani waa shay meel san dhaafin leh marka wala التحديد له كلمة وحين نري وحي استعمالان متكلمينتو إن أي جهة العلو رب تشرو كر إنه تشرو إنه كديدا مركز تحديدك صح إلهي واحد يوم تشرو السجا أدومدي سكوبة لكن السجا لما كوبة القرآن الكريم كتايات المام ربي واحد مخلوق وكوبي كرم تشرو لكن السجا مخلوق يسر ربي تبارك وتعالى واكو تاسوا صح لكن تحديدك كلا لجاه الله يوم لم يرد لا نفيا ولا إثباتا إلا يقاب صدا في عمر ولكن يرونه الله أركيان جل وعز بأعينهم إن ده هذا يكون أركيان على ما يشاء السيد دونين أو أركيان هو يسوي بلا كيف بلا تكييف بلا كيف يذا لما يقال ساس ضلاد النبي صلى الله عليه وسلم مركو يري الله حضو أركيسان كما ترون القمر في ليلة البدر ليس دونه صحيب ليس دونه سحاب معناه هذا معها الله يضيح ولا يسكو شبهه يما إنما هو تشبيه يعني الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي معها معناه هذا إن لبض الله أركي اللي يسكو شبهه والله يضيح waxa la isku shabahayo waa aragtida dayaxa araga aad arkaysaan iyo araga aad la arki doontaan labada arag baa is shabaha
مقصودك وكاسب معنا الله تبارك وتعالى لأن كيفية بان لقرنين وهو بلا كيف ويقولون أهل السنة وحيليهن أهل الحديث إن الإيمان إيمانك قول وهذل وعمل يا عمل ومعرفة يا قرش يزيده زيادة بالطاعة طاعتك الزيادة وينقصه نسقاما بالمعصية ذنبنا وكن نسقاما ومن كثرت روحي أي بضته طاعته لا عديس أزيد كسيادة بدنيه إيمانا حق إيمانك ممن عدب كسيادة بدنيه هو إساقب دونه إساق كالسكدي ساء في الطاعة ضاعة دحدد روح ضاعة كالسكية أو كقليتا كاسا كإيمان بدن أو إيمان كيسو كسياسي مسألة داني ومسألة الإيمان وأنا مسألة أولية هاي محوءة هاي يعني أي مؤلفات فربضان علماء السنة كقرين وأنا وحيكم انتهي مسائشة أصوشة خلاف وكل حمري بين أهل السنة وبين الفرق الضالة يعني فرقوين كاللنصن يا أهل السنة ما لها الوكلة تجي بمسألة ذي كمتها مسألة الإيمان إيمان محل هذا إيمان محويه إيمان كهلق يا حمرك اللي هذا ما هي دي سمحيتها محوك كوبيه مسألة ذا معنا كتب ضم بين كقرين مصنفات خاصة علماء السنة كقرين مثلا الإيمان لابن أبي شيبة وكلائي إيمان لابن مندة إيمان لابن مندة الإيمان للعدني الإيمان لابن تيمية وغيرهم يعني وحويان كتب ربضان وقوني بمسألة الإيمان كقرين علماء السنة وحين اسكوا فقصيهين مبدأ هذا أوشاق شيخ أهل السنة والجماعة أما السلفك أما أهل الحديثك مذهب كود وحوي إيمانك وحكك بيه قول يا عمل يا معرفة بمعنى اعتقادها قرشة قلبك وينو شيء اعتقادية عربك أو كل واقع حبنه أو سماية وإنت يعني وحويان انت سمركي كلمان بإيمان لي هذا سيدي امام الشافعي عليه رحمة الله كسوغان saddexdaasi mid laga kaaftoomi kara ma jiro tiirarka iimaanku waa inta ruuxu inta marka laga helo buu iimaankiisu saxday oo inuu qalbigiisana ka ictiqaadiyo shaygi qalbiga geliyo arabkana ku dhawaaqo shahaadateyn ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah arabku uu cabiro wixii qalbiga ku jiray kadibna inay xubnuhu la yimaadaan wixii laga rabay inay la yimaadaan saddexdaasi markay israacaan baa waxa la yiraahdaa waa iimaan marka maxaa soo galaya yani alqawlu min aliimaan wa a'maalu aljawaarih min aliimaan kulligood markay isu tagaan bay markay iimaan noqonayaan saasay ku qeexaan طيب يعني waxay yiraahdaan yani i'tiqaadu alqalbi iyo qawlu allisan iyo amalu aljawaarih culimada sunnada qaar kamida waxay ku gaabsadaan قول وعمل marka waxa soo galay qowl wa amal qowlunta waxa soo galay qowlul qalbi iyo qowlul lisan amaluntana waxa soo galay amalul qalbi iyo amalul jawarih markii saa loo gaabiyo qowl wa amal qaarkood waxay ku daraan waniyatun oo markaas iyaduna ikhlaaskii bay noqonaysaa qaarkood waxay ku daraan wa sunnatun oo marka waxay noqonaysaa intaasiba markay kulmaan waa inay dariiqii nabiga ku socdaan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi marka haddii la gaabiyana macaanidaas oo dhan way soo wada galayaan haddii la tafsiiliyana amiyada qaarkood say sameeyeen way ka sii fiican tahay oo kelimada marka macna madax bannaan bay faa'iideynaysaa macnaha طيب wuxuu leeyahay al-imam ibn abd al-barr fi at-tamhid wuxuu leeyahay ajma'a ahlu al-fiqh wal hadith ala anna al-iman qawlun wa 'amal يعني فقه يا حديث كعلماء waxay isku waafaqeen iimaanku inuu yahay qowl arabka lagu dhawaaqo amal xubnuhu sameeyaan wala amala illa biniyah amalna ma jiro illa niyyo mooye oo i'tiqaadki qalbiga macna azimatul qalbi ama qasdul qalbi macna wal iimaanu indahum yaziidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah yani fuqahada iyo muhaddithiinta agtooda إيمانك طاعته كسيادة معصيدنا وانكون نسقاما والطاعات كلها عندهم إيمان طاعته أردن وح الله وحي خير يتسمينيس عند أهل الحديث وأهل الفقه إجماع هذا
waxa ay ka mid tahay iimaankii ka mid tahay wax kastoo samaynayso waa qayb iimaankii ka mid haddaad salaad sunna tukanayso iimaankii bay ka mid tahay salaad waajiba iimaankii bay ka mid tahay sakadii iimaankii ka mid tahay xajkii iimaanku ka mid yahay al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar iimaankii buu ka mid yahay daaca kasta waa qayb iimaanka ka mid iimaankii oo kordhayo waa gabal iimaanka ka mid marka iimaanka markuu ruuxu taacada badsadana waa siyaadaya markuu macaasi iyo dunuub gaabana waa isdhimaya waa nusqaamaya oo macaasidu way dhimaysaa macna way nusqaaminaysaa madhabkoodu sidaas طيب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كتاب الإيمان بمسألة آد أقول تفصيليي ويقولون وحيليهن أهل السنة إن الإيمان قول وأراه عربك لغيره وعمل سمين حبنها لغا سمي ومعرفة قرشو قلبك قرتو اعتقاد وقلبك اعتقادي واحد صدح داس أيا ليدا طيب مع دعية هدي أوصل روح قلبك كلية كاعتقادية قلبك كلية لكن عرب قوسا كقدواق عمل الله أوصل إيمان مؤمن معه مؤمن ويلده معه وكذلك هدو قلبك كاعتقادية عرب كان كقدواق لكن إنه عمل أهان أولي ما دديده صلاة ما تكنيو وحب الله ما إيمانيو عمل الله ما إيمانيو قلبك كان كرميسنا هاي شهادتين كان عرب كواكقدواقيا أيضا مؤمن ما وإنه عمل لي ماد مركو عمل كلي مادو أيو مركو نقونيا محو أهاي إيمان كيسو وصح نقونيا طيب وحلقة وضع مركو تمكنو مركو رأي إسلام كو روح سوق ليو وحوكو سوق ليا اعتقادك هي رواق عبرك عربك أوك عبري انتاسو إسلام كو سوق لي لكن مركو إسلام كسوق له وإنه عملكي لازم كهاي إيمانك كحدنا إيمانكنا أوصل لأنتي أصحينين وإنه عملكي لا إيمان حدو عملكي لا إيمان وايو معنى إيمانكي سوى بورا ياوي معنى صدح راسي مركا مكلا مارمان وإنه يتشران معناها وروحه لا إيمان توي مركا سو إيمانكي سو صح نقوني طيب وحا خلاف سنة مسألة دا أيضا في رغض الضالة دا قاروا حيدا هذين الإيمان هو التصديق إيمانك هو الرمين بس ساسو معنا قلبك أول مكرم يسنده وإمام مؤمن بعد وركاس وركا لمن كان إلى هذا مرجئة قولنا وحي هذين الإيمان هو الاعتقاد وقول اللسان قلبك كاعتقاد عرب كان كقرواق بس عملك إيمانك لازم ومعها أركانتي سنة كامد معها أظن عمل بسمين بعض مؤمن نقون كرتا مذهب كاسينا ومذهب باطلة مذهب أهل السنة وكاس صدح ضبا إن لكل ميو سؤال شتاقني واحد تمرك عملك اعتقادك قلبك لقري عربك واحد لقرنا واقعين وشهادتين كيو لقري عملك دمانتي إيمانك كم دي هاي بالي لكن ميدا مهم كإن لو قادوبها وحوي عملك إيمانك كم دا أيا قيب سمية صدح بو قيب سمية عملك قار كميدا والركن لأنتي أوسن إيمانك أصحين قيب كميدنا وواجب كتجديسا وإيمانك نسقاميو لكن أوسن إيمانك أسل كيسي مبريو قيب تصدح هذا عملك كميدنا ومستحب وصنو وإيمانك هدو الروح اللي مادنا إيمانك سي وحبوكو كردينيا hadduu ka tagana nusqaan weyn iimaanka uma geysanayo warkaasi wax weeyaan waa mustahabbaadka iyo sunanka iyo nawaafisha acmaashu marka intaas u qaybsamaysa amalka rukniga ah ee la'aanti uusan iimaanku asaxaynin waa amal kasta oo ka tagidiisa nusuustu sheegtay in lagu gaaloobayo gaalnimadana laga wado قال لماذا مخرج من الملة أهيد عمل كستا أو نسكو سو أروري كتجديسو إنه قال لماذا سينا تي وينيد لقوضه عمل كاسي وحن لنا هاي والركن من أركان الإيمان عمل كستا أو نصوص تشكتي كتجديسا إن لقب حين دينت لكن روحي دم بالله قري عمل كالنوع عاسنا وحن لنا هو واجب
laakiin wujuubkiisu iimaanka tegiddiisu iimaanka nusqaamin mooye iimaanka asalkiisii ma burinayo wixii inta aan ahayna wuxuu noqonayaa acmaasha iimaanka siyaadinaysa laakiin aan dhaawacayn sidaa waxaa la mida sida Sheekh Islaam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah uu sharxayo waxaa la mida oo uga qiyaas qaadanaysa oo miisaalaad fahmi karta ku ah xajka oo kale ama arkaanta oo dhan ba arkaanta kale xajka mesela wuxuu leeyahay acmaashiisa qaar waa arkaan haddaad ka tagto xajkaagi waa buraya sooma qaarna waa waajibaad oo haddaad ka tagto waxaad u baahan tahay xajkaagi naqsi baa galaya inaad kabto laakiin asalkiisii ma burayo qaarna acmaasha ka midana waa mustaxabbaad iyo nawaafil oo xajkii ma dhaawacmayo dhibna ma soo gaadhaya haddaad la timaado se ajir siyaada baad ku helaysaa soo camalku saa uma qaybsamo camalka iimaankuna intaasuu qaybsama camalka iimaanku intaasuu qaybsama daabidka lagu kala garanayana waa in nusuusta loo noqdo wixii nasku ku tuso inuusan ka maarmaynin iimaanku asalkiisu ka maarmi karin waxaan leenahay waa ruknun min arkaan aliimaan biduunihi laa yasixu aliimaan baan leenahay wixii camal ah ee nusuustu ku tusto haddii laga tago inuusan iimaanku buraynin laakiin dembi ah marka waxaan leenahay waa min waajibaati aliimaan waa acmaasha waajibka oo iimaanku u baahan yahay laakiin asalkii iimaanku ma burayo haddii laga tago wixii intaa ka soo hadhayna waxaan leenahay waa acmaal mustaxabba ah iimaanka siyaadinaysa haddii laga tagana aan iimaanka dhib u geysanayn sidaas way macnaha yani wax weeyaan masaladaasi waa mas'alo murankeeda iyo doodeeda iyo yani mu'alafaadkeeda iyo niqaashkeedu waayahan aad u badan yahay macnaha masalatul iimaan iyo muxuu ku asaxaa iyo yani wax weeyaan saas weeyaan marka macnaha saasa laga wada tayib qodobka labaad waxa weeyaan iimaanku inuu siyaado oo nusqaamo waa qodobka labaad iimaanku waa siyaadaa dadkuna iimaanka waa ku kala siyaasi waa ku kala badan yahay quraanka kariimka tilmaamay inuu iimaanku siyaado liyazdadu iimaanan ma'a iimaanihim iimaanku waa siyaada wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum iimaana meesha waxa laga fahmay marka dadku iimaankoodu inuu kala xoog badan yahay kalena siyaasan yahay iimaanku waa isdhimaa waa duugooba xadiidkii mustadrak al-hakim ku yimid inna al-iimana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum waa duugooba kama yakhlaqu ath-thawbu sida maradu u duugowdo kale marka iimaanku waa duugooba waa nusqaama waa isdhimaa waana siyaada maxay tahay maadada siyaadisa waa daacada markaad khayr la timaado daaca la timaado camal la timaado qowl la timaado iimaankaagii baa kobcayo siyaadaya maadada nusqaamisana waa macsiyada iyo dunuubta markastoo dembi gasho iimaankaagii baa hoos u dhacaya ilaa marka dambe ay dhici karto inuu kugu soo hadho un aslul iimaan waa midda ay ku xidhan tahay xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam la yazni zani xiina yazni wa huwa mu'min wala yasriqu as-sariqu xiina yasriqu wa huwa mu'min ruuxu markuu xadayo mu'min ma markuu zinaysanayana mu'min ma maxaa laga wadaa bimaana wax weeyaan iimaankii kaamilka ahaa ee xumaantan ka celin lahaa baa meesha ka baxay uu isdhimay shaygu hadduu isdhimo dabcana wixii uu celinayay ma celinayo sooma yani wax weeyaan xariga ama xakamaha hadduu dabco ma ku celinayaan yani shaygi kuma celinayo bireega baabuurku hadduu dabco ma celinayo sooma waa fakanaya sidaas daraaddeed iimaankii markuu dabco wuxuusan ruuxa ka celinaynin wuxuu ka celin lahaa hadduu dhammaystiran yahay marka iimaankii ayaa la anfiyey waxa la anfinayana aslul iimaan ma ahe kamaalkii iimaanka la anfinaya ama yani waxa waajibkiisii baa la anfinaya saas way macna ama asalkiisii lagama anfinayo ruuxu wax diinta ka saara inuu gala mooyaan macaasidaasi diinta kaga bixi maayo sida noo soo socoto macna tayib salaasi marka waa mas'ala ijmaaca
ahlu sunnaha iimaanku inuu nusqaamo oo isdhimo kala gedisan yahay kala badan yahay kala yar yahay eelkiisuna ay ku kala badan yihiin sidaas way macnaha ayib wayaquuluuna waxaa khilaafsan firaqda luntay qaar ka mida oo qaba iimaanku waa hal shay oo aan isbedelin aan nusqaamin aan siyaadin dadku aynan waxba iskula dheerayn oo isku mid ka yihiin waa masalada ay yidhaahdaan maalan nimanka la yidhahdo murji'ada iyo qolyaha la midkaa waxay yidhahdaan iimaanku dadka oo dhan waa isku iimaan malaa'igta iyo ambiyada iyo rususha iyo cusaada muslimiintu iimaankoodu waa isku darajo saas daraaddeed malakul jibriil iyo mu'minka muslimiinta ugu dembi badan waa isku iimaan bay qabaan maxaa yeelay dembigu iimaanka wax uma geysto waa hal shay oo ama wuu wada joogi ama wuu wada tegi mooye wax yacni waxa weeyaan aqbalahaya inuu isdhimo ama siyaado ma aha bay dheheen saas way macnaha marka waa murji'ada ama khawaarijta iyo nimanka la yidhaahdo muctasilada iyagu waxay qabaan khawaarijta khaasatan sida ahlu sunnahoo kale ay qabaan ahlu sunnaha sidoo kale waxay qabaan tacriifka marka la yidhaahdo way ku soo dhawaan waxay leeyihiin iimaanku waa qowl iyo camal iyo ictiqaad laakiin iyagii ahlu sunnuhu waxay ku kala tegayaan ahlu sunnuhu waxay qabaan sax iimaanku intaa ha ka koobnaado laakiin wuu isdhimi karaa waa nusqaami karaa waana ziyaadi karaa saas daraaddeed ruuxa isagoo iimaankiisii nusqaamay oo dembi galay buu mu'miye ayagu waxay leeyihin maya intaas buu ka kooban yahay waana hal shay isma dhibo isma nusqaamo ma siyaado haddaad la timaaddo khalad ama dembi weyn aad gashana asalkiisii baa buraya annaga maxaan leenahay ahlu sunna waxay leeyihiin wuu nusqaamaya maalan mu'min buu ahaa yacni qalbigiisa iyo carabkiisa iyo arkaantii iyo waajibaadkii intaba waa la imaanayay zinaa ka dhacday walciyaadu billah zinaa ka dhacday ahlu sunnuhu maxay leeyihiin zinadaasi waa macsiyo waxay dhintay oy nusqaamisoy dhaawacday iimaankiisii laakiin mayna ka saarin diintoo gaal ma noqonin maxaa yeelay iimaankii baa shay qaybsami karaa agtooda shay yaqbal atajazu waa qaybsami karaa waa shay qaybina joogi karto qaybina ay tegi karto sababtiisii haddii la helo maxay leeyihin khawaarijta iyo muctasiladu waxay leeyihiin soo dembi weyn maadan gelin haa dembigaa weyn iimaankaagii buu ku dhufanayaa kadibna isagiioo dhan buu baabi'inaya saas daraaddeed waad gaaloobi dembi weyn haddaad gasho waad gaalowday haddaad zinaysato waad gaalowday haddaad wax hadda waad gaalowday haddaad ruux disho waad gaalowday haddaad wax xamato waad gaalowday oo maxay tahay gaalnimadan faraha badan ee dadka aad saarteen waxay leeyihiin leanna waxa weeye waxa meesha yaallaan qaybsami karinoo haddii qaybi tagto qaybtii kalena waa tagta wax kala hadhaya maaha meesha marka ay ku kala baxayaan ahlu sunnaha iyo khawaarijta iyo muctasiladu waa hagga ayagu waxay qabaan waa juz'un laa yatajaza walaa yaqbalu tajzi'a aslan laa yanqus walaa yaziid nusqaan ma aqbali karo mana siyaadi karo waxba dadku isku hal mid hal shay waa shaygaas ama wuu joogi ama wuu tegi laakiin ahlu sunna waxay leeyihiin sax waa qowl waa camal waa ictiqaad laakiin wuu qaybsami karaayo hadduu dembi yimaado qayb buu yuu burinayaa qayb iimaankii ka mida ayuu nusqaaminaya laakiin asalkii iimaanka waa jira oo ruuxii weli waa muslim macna masaladu marka waxa weeye xawla hada ayaa la isugu khilaafsan yahay madhab ahlu sunna wal jamaa marka waa sida iimaanku waa qowl camal i'tiqaad wuu siyaadaa haddii daaco la helo wuu nusqaamaa hadday macsiyo timaado sidaas way macna wuxuu sheekhu waman kathurat ruuxay badato daacatu daacadiisu badato azyadu mid siyaado badan weeye iimaanan xagga iimaanka miman cid buu ka siyaado badan yahay huwa isaguba duunahu isaga sokadiisa fi taacati daacada dhexdeed cid daacada kaga hooseeya isaga iimaankiisu waa ka siyaasay saas way macna oo yaani waxa weeye macrifaduna waa kala badan tahay camalkaana waa kala badan yahay bal waxaaba soo aroortayba qur'aanka kariimka Allah tabaaraka wa tacaala in uu acmaashii iimaanku magacaabo wama kana Allahu liyudiica iimaanakum iimaankiina ilaahay mid dayacaya ma iimaanka maxaa laga wadaa
bimacnaa salaatakum baa laga wadaa ila waxay ku soo degtay qisadii markii qiblada la bedelay qibladu baytulmaqdis baa markii hore loo tukan jiray markii la bedelay oo kacbada loo bedelay ayaa waxay isweydiiyeen saxaabadu muddo dheer dadkii u tukanayay xagga baytulmaqdis salaadoodii ma xasay noqonaysa markaasaa waxaa soo degtay wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum salaadiinnii aad baytulmaqdis u dukateen alla ma dayacayo salaaddii maxaa lagu magacaabay marka iimaan baa lagu magacaabay saas way macnaa acmaashoo dhan marka iimaankay ka mid tahay acmaashoo dhan waa wada iimaan saas way macnaa ayib wayaquuluuna waxay leeyihiin ahlu sunnuhu ina axadan ruux oo min ahli tawxiidi ahlu tawxiidka ka mid a iyo waman cid yusallii tukada ilaa qiblati lmuslimiina muslimiinta qibladooda xaggeeda u tukada ka mida low irtakaba hadduu sameeyo denban dembi hadduu sameeyo aw amase dunuuban ama dembiye uu sameeyo kaiiratan oo fara badan saqaa'ira dembiye yaryar aw kabaa'ira ama dembiye waaweyn ah maca aliqaamati isaga oo ku negi oo ku sugan cala altawxiidi lilah tawxiidka ilaahay loo keli yeelo xaqiisa asagoo weli ku sugan oo aan ka gudbin haddii uu waxaa la yimaado waaliqraari maca aliqraari isagoo qirsan bima iltasamahu wuxuu iltisaamsaday wuxuu isku laasimiyey oo waqabilahu uu aqbalay can illaahi xagga alleh wixii uu isku laasimiyey ee uu oggolaaday asaga oo qiraya tawxiidkiina ku dul sugan oon shirki u bixin haddii uu dunuubta noocaasi waxyaalahaasi ka dhacaan fa innahu isagu laa yakfuru ma kufrinayo bihi isaga kuma kufrinayo wayarjuuna waxay rajaynayaan lahu isaga almaqfirata dembi dhaaf bay ilaahay uga rajaynayaan wayakfiru alla waa dhaafaa maa duuna daalika shirkiga waxaan ahayn liman yashaau ciduu doonuu u dhaafaa masaladaasina masaladii horeay farac ka tahay masaladii hore ayay masalatu liimaan ayay farac ka tahay cinda ahli sunna iyo ahlulxadiidka ruuxa muslimka ee muwaxidka ah ee tawxiidka ku sugan wax islaamnimadiisa iyo tawxiidkiisa buriye aan la imaanin islaamkii uu qiray oo oggolaaday buu ku dul sugan yahay wax naaqid ah oo islaamkiisa jabiya lamuusan imaanin laakiin dembiye kaluu galay ama waaweyn ama yaryar ruuxii waa muslim islaamnimadiisu way sugnaatay markaasuu dembiye galay dembiyadaasi waa dembiye waaweyn laakiin tawxiidkiibuu weli ku sugan yahay waa tawxiidsanayaa islaamkiibuu oggol yahay salaaddii waa tukanayaa wixii arkaanta iimaankaa waa la imaanayaa wax buriya oo islaamnimadiisii jabiya oo diinka baxa lamuusan imaanin isagoo sidaasuu dunuub waaweyn galay ama dunuub yaryar buu galay dunuubtaa waaweyn ee kale uu galayo diinta ka saari mayso diinta ka saari mayso kaga bixi maayo oo ma gaaloobayo ee waxaan leenahay uun waa mu'min faasiq ah soo ma yani waxa weeyaan mu'minun biiimaanihi faasiqun bimacsiyatihi waa iimaanka qalbigiisa ku jiriya khayrkuu la imaanayana mu'min buu ku yahay khaladkan iyo dembigan uu galayna faasiq buu ku yahay laakiin diinta kama bixinoo xeradii kama bixin saas macnaa yani taasi maalan dad buu laayay ruuxii waa tukanayaa waa tawxiidsanayaa diinta islaamka waa oggol yahay qaatil buu noqday dad laynaya maxaa la samaynaya kas buu dadkii u dilay ma gaaloobaya maya faman cufiya lahu min akhiihi shayءun faاtibaacun biاlmacruufi waadaa'un ilayhi biixsaan kii dilka sameeyey iyo kii wax laga dilay ama kii uu dilay iyo kii dilka sameeyey alla wuxuu u sugay walaalnimo alukhuwa waa loo sugay ukhuwa iimaani ah hadduu gaaloobi lahaa lama dhehen wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu laba kooxood oo mu'miniinta ka mid ah hadday islaayaan ruux mu'minoo lala dagaalamo soo dembi weyn maa laba kooxood oo mu'miniina hadday islaayaan iimaan baa loo sugay waxaa la yidhi waa mu'miniin wayna islaynayaan soo ma xadiiskii nebiga sal lla lay xadidkii abidar waa kii ruuxii dhinta jibriil baa yimid nebigu sal lla lay slam markaasuu wuxuu yidhi man maata min ummatika laa yushriku biاllahi shayئan dakhala janna qultu wain zanaa wain saraq qaala wain zanaa wain saraq qultu wain zanaa wain saraq qaala wain zanaa wain saraq
يعني waxa weeyaan jibriil baa yimid wuxuu yiri cidii dhimato ummadaada kamid oo tawxiidsanaysa oo shirki ku jirin jannadu galay markaas waxaan idhi buuri ma hatta haduu zinaysto waxado hatta haduu zinaysto waxado waan ku celiyay buuri hadana wuu igu celiyay buuri waan ku celiyay hadana waa igu celiyay buuri riwaayad kalena waxay ka dhigaysaa cidda hadalka nabiga markuu sheegay cidda hadalka ku celisay inay Abu Dharr oo uu yiri rasuulillaah ma hatta haduu xado zinaysto nabigu yiri hatta haduu xado zinaysto tawxiid haduu ku dhinto jannadu galay oo ku celiyay nabiguna jawaabtii ku celiyay markii damana uu yiri ala ragmi anfi Abi Dharr marka yaani waxay ku tusaysaa ruuxu isagoo dambi weyn ku dhintay inuu hadana jannada galay inuu mu'min yahay jannadana ruuxan mu'min ahayn ma galay sooma marka dunuubta waaweyn ee gaalnimada keenaynin diinta lagaga baxayo laakiin maxay samaynaysaa iimaankaaga nusqaaminaysa bas laakiin diinka bax ma sida ayaa khilaafsan madhabka ahlus sunnaha waxa khilaafsan nimanka la yiraahdo khawaarijta iyo mu'tazilada oo taanadaba soo sheegnay waxay qabaan dambi weyn ruuxu haduuba galo diintii waa ka baxay hadduu sidaa ku dhintana aakhiro gaal naarta ku waarayo way adduunyadana waxaan ula dhaqmaynaa inuu murtadiin laaway xoolihiisa banaan dhiigiisa banaan soo muusan zinaysanin muslimba ma halkaas soo istaagay oo hadduusan muslim ahayn maxaa xuduudda looga oofinaya maxaa loo jeedlayaa wuu zinaystay oo maxaa dhagax loogu dilayaa waa zinaystay waa murtad ama la dilo laga taqallus يعني حدود روح لمرينيو waxay ku tusaysaa inuu muslim yahay bal al hudud al kafarat al hudud kafarat nabiga sallallahu alayhi wasallam hududaas ilaahay ugu dambi dhaafay marka hasaasay qabaan hal qodob ma u dhaxeeyo labadooda mu'taziladu waxay qabaan adduunka intuu joogo haduu dambi weyn kalo gaal weeyana dhihimayno oo ahkaamtii gaalnimada siinmayno gaalada siinmayno muslim weeyana dhihimayno oo ahkaamtii muslimiinta siinmayno لكن وحن لنا هي منزلة بين المنزلتين وبدعاء إلي مادين لوضع بوص بو دحيا إسلامي منا واكسو تجي قال نمدينا ما سينكرنا أحكام تدي لكن بوص دحد أبو يو ياله ميل دح ور ميل دح وحلي هذا أحكام كسو دكتمجرت قرآن كأي السنة دي أحكام تشريع عضو أما قال بيقوتها لا أما هي أما مؤمن بيقوتها لا مسلم بيقوتها لا حتى منافقين تو الدنيا ده أحكامته مسلم كي قادناه سوساسما لكن لبضع وحان أهين كتاب أسود دقي أحكام كهالله سلام هاي مركب منزلة بين المنزلتين من أصول المعتزلة كمتها أما خوارجت يجو وضائفة يجونا نبكى بدنا محوها هاي حلقي نبي واحد كده بصوب حدي أيجو وركود وإسكعدي وحيليهن أدون كان وقال آخرنا وقال نارتو كواريا labadoodu waxay isku waafaqsan yihiin aakhira naartu ku waaraya adduunyada xukunkiisana khawaarijtu waxay leedahay waa murtadiin laawa mu'taziladuna waxay leeyihiin manzila bayna almanzilatayn adduunka un bay waxoogaa kala bedelan yihiin laakiin aakhiro inuu naarta ku waaraya isku waafaqsan saas macna qolidaas marka khilaafsan oo madhab ahlus sunna garab martay mas'aladan murtakibu al-kabira ruuxa dambiga weyn ku dhacay ee muslimka dambigaasuna uusan ahayn midkii يعني إسلام لماذا تشبينيه أما إسلام كبرينيه وصنعه ساسويا ويقولون وحي ليه إن أحدا روح ومن أهل التوحيد ككمذا ومن عد كمذا يصلي تكذا إلى قبلة المسلمين مسلمين تقبلة ذو أتكذا روح قبلة المسلمين تأتكذا أتشي هو مسلم كمعنى لو ارتكب هدو سميه ذنبا ذنبي هدو فوله أو سميه أو ذنوبا أما الذنبية هدو سميه كثيرة أو فربضا صغائر الذنبية دا صوير أو كبائر أما واوين مع الإقامة إساق أو كنجي أو كدل سجن على التوحيد لله توحيد كدل سجن هاي توحيد كي كما به والإقرار ومع الإقرار إساق أو قرية بما التزمه وحو إسلازميي وحو إسلازمي محوية يعني إسلام كي أو قاتي أو أقبلي إسلازميي التوحيد كي وقرسين والإقرار ومع الإقرار بما التزمه وقبله أو أقبلي wuxuu iltizaamsaday ee uu aqbalay oo islaamnimada tiina wali waa qirsan oo muusan ka bixin oo ma diidin oo kama noqonin
can illaahi alla xaggiisa uu ka laasimsaday ama uu ka aqbalay fa innahu isagu laa yakfuru ma kufrinayo bihi dembigaa uu galay ma ku kufrinayo ayib laba mid wey marka xukumkiisa aakhara muxuu noqonaya adduunka waxaan siinaynaa waa xugum ruux muslima oo faasiqa soo ma yani masaajidii buu ku tukan mucaamaladii muslimiinta lala mucaamaloon dhiiggiisu waa macsuum xoolihiisu waa macsuum wahaakada sidii axkaamtii muslimkaa la siinaya aakhara maxaan leenahay aakhara waxaan leenahay laba mid waa hadduu intuu nool yahay dembiga ka soo noqdo oo ka toobad keenana ilaahay waa ka dhaafaya hadduu ku dhinto asagoon ka toobad keenin dembigii arrinkiisu waxa weeye taxta almashii'a ilaahay doonitaankiisu hoos yaallaayo alla tabaaraka wa tacaala in shaaa cadabahu wa in shaaa cafaa canhu hadduu doono alla wuu iska cafin oo intuu saamaxuu jannada iska geyn bifadlihi wa mannihi hadduu alla doonana wuu cadaabi oo wuu ciqaabi oo dembiguu galay ee uusan ka toobad keenina ku dhintay baa laga jari markii laga jarana xaggee buu ku dambaynaya ya jannaduu ku dambaynaya wuxuu noqonayaa ama shafaacuu ku soo baxaya ama ilaahay baa u naxariisanaya oo naxariista rabbi buu ku soo baxaya ama dembigii markii laga jaro waa ka soo baxaya akhiiran jannaduu ku dambaynaya saas daraaddeed ruux tawxiid iyo iimaan saxa ku dhintay naar ku waari maayo ama ilaahay baa cafin ama wixiisa markii laga jaro jannuu ku dambayn doonaa hada madhab ahli sunna wal jamaa saas macna adduunkana ma gaaloobaya ahkaamta muslimka la siinay saas daradeed sheekhu wuxuu yiri wayarjuuna waxay rajaynayaan ahlu sunnuhu lahu ka dambiga weyn galay al-maghfirata dambi ilaahay dambi dhaafkiisay u rajaynayaan tayib maxaa yeelay aayadii quraanku keenay inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ilaahay ma dhaafo in isagiya adoomadiisa wax la wadaajiyo shirki ilaahay ma dhaafo laakiin wayaghfiru ma duuna dhalika liman yasha wixii aan shirki ahaynse alla wuu dhaafaa ciduu doonuna u dhaafaa saas macna marka umumkeedu waxay faa'iideynaysaa kabaa'iru dhunub ma duuna shirki tahta al-mashi'a wayaghfiru ma duuna dhalika liman yasha saas weeyaan طيب masaladaasi marka oo ku saabsan muxuu ahaay takfiirinta iyo gaalaysiinta iyo xukumka ruuxa la xukumo oo muxuu ahaay diinta laga saaro acmaasha dunuubta unahe aan gaalnimada gaarsiisnayn in ruuxa diinta lagaga saaro waa madhab al-khawarij oo la xukumo inuu ridoobo diinta ka baxay lagu xukumo laakiin waxa uu galay iyo dambigu galay hadduu yahay shay tawxiidkiisii jabinaya oo riddo keenaya oo islaamnimada lagaga baxo oo ama i'tiqaad ah ama qowl ah ama ficil ah la intaba uu noqon karaa hadduu ka la yimaado markaasi in la gaalaysiyo diinta laga saaray ayaduna waxay u baahan tahay dawaabideeda iyo shuruudii shariicadu u sheegtay marba haddii ruuxa islaamnimadiisu marka hore sugnaato oo uu diinta soo galo si rasmi islaamnimadiisu u sugnaato inuu islaamnimada ka baxo oo wax diinta ka saara uu ku dhacay marka waxay u baahan tahay laba in la kala qaado ficilkiisa iyo wuxuu sameeyay in la xukumo taa waxaan leenahay waa gaalnimo waa riddo waa kufri ficilkiisa waa la xukumi mar haday yaani nusuustu cadaynayso ficilkani inuu gaalnimo yahay ficilkiisa iyo qowlkiisa iyo wuxuu sameeyay waxaan leenahay waa gaalnimo iyadoo wax weeyaan waa iska caday ama isaga laf ahaantiisa in la xukumo waxay u baahan tahay in shuruud inta ka badan la helo way ka adag tahay marka waana masalada loo yaqaano yaani wax weeyaan takfiirul muayyan shakhsiga gaalaysiintiisa iyo xukumidiisa way ka adag tahay ficilkiisa iyo qowlkiisa si fudud baa loo xukumi karaa mar hadii daliilku ku cadi laakiin isaga in la xukumo waxay u baahanaysaa shuruud siyaada ah intifaa'ul mawaani' ruuxan xaalkiisa in la qiimeeyo masalada uu ku dhacay maxay tahay waa mas'alo noocee ah tafaasiil badan bay u baahanaysaa taa marka in la ihmaaliyo oo shuruuti iyo mawaanicdi takfiirul muayyanka in la ihmaaliyo ama la fududaysto oo iyadoo la fiirinin ama la tixgelinin
ruuxani gaalnimu ku dhacay wabitaali waa gaaloobay markaba la saarana ayadana waxa weeyaan waa nazca ama waa fikr min afkaari alkhawaarij keliyata ma aha uun ruuxa dembi weyn galay un gaalaysiintiise ruuxa ku dhacay ruux shayga mukhrijka ah ama gaalnimada keenaya ama naaqidka ah gaalaysiintiisa shakhsan ama caynan haddaan ijraagii iyo shuruudii iyo dariiqii shareecada la marinin ayada lafteedu waxa weeyaan waa arrin halisteeda la waa cidda gaalaysiinaysa waa cid noocee ah waa in la fiiriyo mu'ahal ma u tahay ehel ma u yahay inuu xukunka noocaas oo kala qaadan karo ilaan cid walba ma qaadan karto laanna gaalaysiin ruux muslim oo diinta laga saaro oo la xukumo waa wax xugum la qaato midka ugu adag waa waxaa ka fudud inaad dhiiggiisa xukunto waxaa ka fudud inaad xoolihiisa xukunto waxaa ka fudud inaad furuujta iyo xubinka taranka xukunto axkaamta kaloo dhan waa ka fudud yihiin ruuxa inaad xukunto diintiisa xukunto mar hadday sidaa u adag tahay waxay u baahan tahay marka yaa eheluhoo qaadan kara in la fiiriyo wax cid walba ay ku durdurin karta maaha wax nin walba uu fooda la geli kara maaha yacni ahliye waa inay jirto waa midda labaade shayga ruuxu uu ku dhacay waa in la qiimeeyo isaga laf ahaantiisa waa in la qiimeeyo waa in la qiimeeyo duruufta uu ku nool yahay waa in la qiimeeyo yacni dhinacyo fara badan marka layska taago bay soo bixi kartaa marka gaalaysiintiisa ama in laga istaago markaa laga gaabsado arrin marka waxa weeyaan iyada lafteedu fudud ma ah waa arrin adaygeeda le macna xataa markuu shaygu naaqid yahay oo ruuxu ku dhaco waa in ijraaga iyo dariiqa shaygu yani xukunka uu maro way macna wakhtalafuu waxay isku khilaafeen ahlu sunnuhu fii mutacamidii tarki salaa salaada ka tegiddeeda ruuxii u qastay almafruudati ama kuwii u qastay salaaddii almafruudati ee la waajibiyey xataa yadhaba ilaa uu tago waqtuhaa waqtigeedu uu tago min hayri cudrin cudurdaar la'aan kaa way isku khilaafeen xukunkiisa fakafarahu waxaa gaalaysiiyey jamaacatun koox baa gaalaysiisay lima ruwiya wixii la wariyey darteed baana loo gaalaysiiyey can inabiy laga wariyey sal lla lay slam annahu nebigu qaala inuu yidhi bayna alcabdi wa bayna alkufri tarku salaa addoonka iyo gaalnimada waxaa u dhaxaysa salaada ka tegitaankeeda ayib wa qowlii iyo odhaahdiisa nebigu uu yidhi sal lla lay waslam man taraka asalaata salaada ruuxii ka tegay faqad kafara waa gaaloobay waman taraka ruuxii ka taga asalaata salaada ka taga faqad bari'at waxaa ka beri noqotay minhu xaggiisa dimmatullaahi ilaahay cahdigiisa iyo ballankiisa ballan ilaahay kuma jiro axaadiistaasaa loo deliishaday oo culimmada qabta inuu taariku salaadku gaal yahay ay u deliishadeen markuu ku yidhi dembi weyn oon gaalnimo gaadhsiisnayn ruuxa diinta loogama saari karo oo diinta kagama baxayo buu wuxuu keenay masale khilaafiye ah oo a'immadu ay ku kala tageen ma lagu gaaloobayaa mise lagu gaaloobi maayo waxay tahay waa masalada ah tarku salaa salaada ka tegiddeed salaad soo camal ma salaaddu waa camal salaada ka tegiddeedu diinta miyaa lagaga bixi oo xerada dhan baa lagaga bixi miya mise waxaan leenahay taariku salaadku waa muslim caasi ah oo weli xeradii ku jira kee tahay way macana wuxuu yidhi marka ahlu sunnuhu masaladaa way isku khilaafsan yihiinoo salaada ka tegiddeeda ruuxa u qastay oo kas uga tegay salaaduna ay tii faradka ahayd ee waajibka ay tahay ilaa waqtigeedu uu dhammaadoo tago ruuxii salaada sidaa uga tegey koox jamaaco ka mida culimmada sunnadu iyo ahlulxadiidku way gaalaysiiyeen axaadiistanina u cuskadeen xadiiska hore maa bayna alcabdi wa bayna alkufri tarku salaa xadiidkaa waxaa soo saaray abu daawuud iyo tirmidi ibn maajah waana xadiid bal waxaa wariyey alimaamu muslim fii saxiixihi bayna alrajuli wa bayna alshirki waalkufri tarku salaa lafdigaasuu ku wariyey waana xadiid saxiixa wey macna xadiid saxiix oo sugan wey ama xadiidka labaad ee uu leeyahay man taraka asalaata faqad kafar xadiid badan baa macnaha ku soo aroortay xadiidka ugu dhow waa xadiidka axmed iyo tirmidi iyo nasaa'i ibnu maaja ay soo saareen min xadiidi burayda oo nabigu yidhi sal lla lay waslam alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa ballanka noo dhexeeya annagiiyo gaaladu waa salaada faman tarakahaa faqad kafar ruuxii ka tagana waa gaaloobay alimaamu tirmidi wuxuu yidhi waa xadiid saxiixa xaakim baa saxiixiyey dahabina waa ku waafaqay wakadalika ibn xibbaan baa isaguna saxiixiyey xadiidkaasina waa kaas wey xadiidka u dambeeya uu yidhi waman taraka asalaata faqad bari'at minhu dimmat ullah isagana xadiidku macnaha waxaa soo saaray ibnu maajah min xadiidi abi darda
wuxuu yidhi abu darda awsaanii khaliilii saaxiibkay baa wuxuu ii dardaarmay nebigu ka wadaa sal lla alay waslam wuxuu yidhi buu ihi anlaa tushrik biاllahi shay-an wain quطicta waxuriqta ilaahay cidna ha la wadaajinin khalqigiisa iyo isaga waxay isugu dareen haddaad rabto ha lagu googooyo hana lagu gubo xataa haddii lagu gubo lagu jarjaro ilahay iyo addoommadiisa waxay isugu dareen walaa tatruk salaatan maktuubatan mutacammidan salaad waajib ana kas ha uga tegin faman tarakahaa mutacammidan faqad bari'at minhu dimma ruuxii kas uga taga ilaahay ballankiisu beri buu ka yahay kuma jiro ballan rabbi tabaaraka wa tacala alimaam alxaafid ibn xajar fi talkhiis wuxuu leeyahay sanadkiisa dacfi baa ku jira laakiin alimaam albusiri fi misbaax الzijaaja isagu wuxuu leeyahay sanadkiisu waa xasan sheekh albanina wuxuu saxiixinayaayo lishawaahidihi buu ku saxiixinaya xadiidka dambe saddexdaa xadiid buu marka keenay oo ay u daliishadeen a'immadu taariku salaadku inuu gaal yahay masaladaasi waa masale khilaafiya laakiin daahirka qur'aanka kariimka aayado ka mid ah iyo axaadiista daahirkooda iyo ijmaacii saxaabaduba wuxuu ku tureersaday taariku salaadku inuu gaal yahay cabdullahi ibnu shaqiiq abu salama kamaa cinda tirmidi waalxaakim fi lmustadrak isnaadin saxiix waa ka warinaya yacni saxaabadu ridwaanullahi calayhim maynan u arki jirin camal laga tago gaalnimo maynan u arki jirin salaadda mooye yacni camal laga tago oo gaalnimo keenaya saxaabadu waxay u arki jireen salaadda ijmaac buu tilmaamayaa inay saxaabadu saa arki jireen hadal saasoo kale ah salaadda ka tegitaankiisa inay gaalnimo ahayd jaabir baa laga wariyaa isagana jaabir bin cabdillahi radi allahu tacala canhu arda marka arrimahaasi waxay tilmaamayaan saxaabada ijmaacoodii bal arrinta markii la dabagalo taariku salaadku gaal ma aha waxay timid baa la leeyahay khilaafkeedu taabiciinta raggoodii ugu dambeeyey ee siqaaru taabiciin ah markay noolaayeen ayay soo baxday saxaabada agtooda wakhtigoodii taariku salaadku inuu gaal yahay doodii kama jira taabiciinta kuwoodii waaweynaa iyo awsaadu taabiciin lagama doodi jirin masalada iyada doodeedu dibbay ka timid waxaa la yidhahdaa zuhri ayaa inta la garanayo laga hayaa u horreeyey wax taariku salaadku gaal ma aha saa u horreeyaa la yidhahda zuhri markii laga tagay oo gadaashiisay a'immadu marka isku khilaafeen afarta imaam iyo a'immadii la noolaa saddexdii qarni khilaafku markaasuu yimid baa la tilmaamayaa macnaha marka taariku salaadku inuu gaal yahay waa madhabu الصaxaaba iyo madhabu الtaabiciin iyo madhabu طaa'ifa min ahli الxadiiثi wاlfiqh yani waana sida raajixe xoog badan taariku salaadku inuu gaal yahay lihadihi اladila wuxuu yidhi marka wata'awala way tafsiiriyeen wata'awala waxay ku awileen jamaacatun koox oo minhum ka mida ahlu sunnaha annahu nebigu yuriidu inuu ula jeedo bidalika arrinka xadiistaa inuu ula jeedo man tarakaha ruuxii ka tagay jaaxidan asagoo diidan lahaa iyada qolyaha qaba inuu taariku salaadku muslim yahay jawaabaha ay ka bixiyeen axaadiistan baa waxaa ka mid ah man taraka salaatadaa waxay yidhaahdeen tarkigan lagama wado yacni waxa weeyaan lagama wado tarkigii camaliga ahaa ee tarki ictiqaadiya waa man taraka asalaata ruuxii salaada ka taga asagoo diidanba waajibnimadeeda oon oggolaynba saasaa laga wadaa bay dheh oo halkaasay axaadiista u leexiyeen oo macnahaasay ku leexiyeen wata'awala saasuu ka wadaa ayib maxay deliishadeen waxay yidhahdeen kamaa qaala siduu yidhi oo kale yuusuf calayhi salaam nebi yuusuf siduu yidhi oo kale innii taraktu millata qawmin laa yu'minuuna billah innii anugu taraktu waxaan ka tegey millata qawmin qowm diintood oo laa yu'minuuna aan rumaysnayn billaahi alla aan rumaysnayn ayib qowmkan diintoodaan ka tegey miyuu ku sii jiray nebi yuusuf ya ma intuu ku jiray buu ka tegey innii taraktu maya nebi yuusuf weligii qowmkan gaalnimadooda kamana qaybgelin ka midna ma noqonin marka tarkigan maxaa laga wadaa waay bimacnaa waxaa laga wadaa tarka juxuudin innii taraktu waan diiday waay innii taraktu ka tegid oo ictiqaadi ah waayo waan inkiray waan diiday mana ogoli
marka man taraka bimacnaa man jahada ruuxii ka taga asagoo oo diidan qur'aankaana isticmaalay tarkiga oo bimacnaa aljuhuud loo isticmaalay halkaasay mariyeen sidaasay axaadiista kaga jawaabeen waxayna ku xambaareen waa ruuxii salaada ka taga isagoo faradnimadeeda diidan marka waa gaaloobaya waa ijmaac marka waa la isla ogolay ruuxii salaadu waajib ma aha oo waajibnimadeedaba diida ka gaalnimadiisa la isla diidana ee waxa la isla laga doodayaa ruux ogol inay farad tahay inay waajib tahay laakiin wahsi uga tagaya marka la yiraahdo war tukana warniyo waan caajisnahay dhahay waan tukan doonaa insha Allah ta'ala laakiin waxooga naf iyo shaydaan baa i wata iyo maruu yiraahdo marihii baa iga nijaasaysan iyo meelaha ku wareegaysta laakiin salaadii inay waajib tahay oo la igu leeyahay waan qirsanahay laakiin waan ka wahsanayaan ninka way ninka laga doodayo laakiin ka soo istaaga salaadu ma jirta waajib ay iguma aha kaasi wax way waa murtad ka gaalnimadiisa hadal kama nool isaga saas daraadeed baa culimadu waxay gaaleysayeen oo diinta ka saareen bil ittifaaq oo uusan muslim ahayn ee dariiqooyinka suufiyada qaar xaq jirsi ah oo yiraahdo takaaliiftii baa naga dhacday yaani waliga baa waxay yiraahdaan sidoo u socdo wuxuu gaaraa xilli aan waajibaadka dhanba ay dushiisa ka dhacayaan oo qalinkuba laga kor qaadahay oo salaad lagu lahayn oo saka lagu lahayn waa wali ilaahay biilih ka noocaas oo kala ah waa diin laawo murtad ah bil ijmaac inuu wali yahay iska badhaaf saas macna laano salaad dhacaysa oo ruuxa ka dhacaysa oo lagu lahayn la iguma le salaad waa kufri waa gaalnimo way macna adigu ama shaydaan ha ku dhaafiyo yaani wax weeyaan intuu wali ku muujiyo meelaha kula galo ama cisyaankaagu baa ka tagsiyo salaada inkirkeeda ha kugu bixiyo macna taa marka halkaasay ku awileen ta'wiilkaasi ay aymada qaar kood mareen yaani wax weeyaan oo in lagu awilayo nusuustan gaalaysiinaysa in laga wado kii diida faradnimadeeda iyo waajibnimadeeda ta'wiilkaasi waa ta'wiil xooga aan maqbuul ahayn ala raajih waa ta'wiil aan maqbuul ahayn ahadiista qaar kamidana yaani ku cado bayna al-'abdi wa bayna al-kufri tarku as-salah wa bayna ash-shirki lafdi kala oranay daahirka quraanka marka ijmaaci saxaabada iyo daahirka ahadiista iyo ta'wiil noocaas looma leexin karo waxa isla ogoliyay aimadu ruuxa salaada ka tagay ee taariku salaadka waa loo yeerayaa bale yustatab baa loo yeerayaa waxa la leeyahay war salaada tuko hadduu tukan waayo waa la soo xidhayaa waa la soo qabanayaa salaada tukaa la leeyahay hadduu markaa tukan waayo waa la dili maxaa loo dilayaa qolada qabta diintu ka baxay waxay leeyihiin yuqtalu ridda waa murtad diin la'aan baa loo dilayaa maxaa ka dhalanaya markaa ra'yigaas in uu yahay gaal dhintay oo salaatul janaaza lagu tukanayn oo qubuurta muslimiinta lagu aasayn oo aan xoolihiisa la dhaxlayn waxay leeyihiin yuqtalu ridda waa qolada qabta uu gaaloobay qolyahan kale qaba muusan gaaloobinna waxay leeyihiin yuqtalu haddan waxa loo dilayaa had baa loo dilayaayo waa muslim galay wax keena dilkiisa sidii ruux dilay oo kale waa la dilayaa laakiin maxaa loo dilayaa haddan ruux isagoo guuru horeeyay zinaystay oo kale waa la dilayaa laakiin maxaa loo dilayaa haddan qoladaas la mid yahay baa qoladaasi marka waxay leeyihiin waa muslimuun la dilay ha lagu tukado qubuurta muslimiinta ha lagu aaso xakaamta muslimiinta siinaya laakiin Sheikh Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah iyo ayma kala waxay leeyihiin ra'yigaasina waa ra'yi aad wajihi ah maqbuulna ah ruux salaada rumaysan oo inta la soo qabto la yiraahdo ama waa lagu dilayaa ama tuko oo tukashadii ka doortay in la dilo waxaan marnaba suuroobi kareynin inuu salaada rumaysan yahay waajibnimadeeda ma dhici karto naftiisa inuu ku furto shay uu rumaysan yahay inuu waajib yahay ama mashruuc yahay warsamee naftaadana ku furo in laga waayo oo uu dil ka doorbido waxay leeyihiin taasi waa daliil cad oo ku tusaya inuu san rumaysnaynba salaadu inay yaani amal mashruucata markaas oo kale marka
yani in laga doodo islaamnimadiisa maba aha bay leeyihin inuu muslim yahay in lagu doodo maba ahaba gaalnimadiisu markaa way iska caddahay bay leeyihin macnaha saas weeyaan wata'awwala jamaacatun koox baa macnaha ta'awushay oo minhum ayaga ka mid ah axaadiistaasay tafsiirkooda iyo macnahooda dhinac kale u leexiyeen oo waxay ku leexiyeen annahu nabigu yuriidu wuxuu ula jeedaa bidalika arrinka man tarakaha ruuxii salaada ka taga jaaxidan isagoo diidan lahaa iyada diidan oo faradnimadeedii iyo waajibnimadeediiba inkirsan kama qaala sida uu yidhi oo kale yuusuf calayhi salaam innii taraktu millata qowmin qowm diintood baan ka tegey oo laa yu'minuuna billah yani waxa weeyaan tarka juxuudin wa diido ka tegitaankeed wa diido uu diidan yahay ka tag waan diidanahay wey macnahaasaa tarkiga laga wadaa tarkigana xadiiskuna kaasoo kaluu la mid yahay ayay markaa mareen hada wabillahi tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم